iyadoo bishii barakeysan Ramadaan ka cabsatay maalmo aad u kooban ayuu xusaaka telefishinka caalamiga Bulsha TV booqday suuqa weyn ee magaalada Buuhoodle markaan saaka booqano suuqa weyn ee magaalada Buuhoodle ayaa indhahay u qaban qudrada lagu soo jiray ugu horeeyay qaruur ganacsatada ugu waaweyn magaalada Buuhoodle ayaa waxay noo sheegeen ka tirtay magaalada Buuhoodle qudrad yar la'aan dhanka kalena magaalada Buuhoodle ayaa waxa soo food saartay abaar aad u kulul iyadana jirin wax biyo waa kuwan ganacsatada iyagoo ka hadlay maaha si ay haajirtay iyo siday maanta tahay wax isku dhow maaha waxa u dhaxaya farq aad weyn baa u dhaxayaan oran karaa iyada oo ay jiraan ay sababeen roob yarida darteed oo ay sababeen maxaan ku raahayay dhanka Itoobiya oo baabuurta nooga keeni jirtay xilli meeshii ka keeni jirtay laakiin iyadu xagga roob ay xidhan hase yeeshee magaalada ay abaar hayso naga kala guuray marka waxaan dhihi karaa boqolkiiba dhowr 80 qudaarta magaalada ima jirtay ama salibada ima jirtay hoos u dhac weyn baa ku jira waxaana u sabab ah aanu taaban karaa ama taarget loo dhigan karaa xilligan lagu jiro oo xilli roob loo bartay oo magaalada ay xilli roob heli jiray ah laakiin hadda abaar ay tahay marka qudaartu aad iyo aad u yar tahay iyadoo noocyada kala duwan hadda isticmaalaha kale markay Ramadaan tahay qudaartii waxa soo horiyaan jirtay qarahii iyo wixii la mid ah iyo wixii sharaabadii lagu talagalay Ramadaanta laakiin waxa la moodaa ilaa aadaanka inaad dhaqaaqi Ramadaanta inay samuuqan marka sababaha jira waxa laga hadlay aad u culus baa la dhihi karaa qof walba hadda marka dadka bulshada ay soo weydiiso Ramadaanta qof walba biyaha iyo fawsadii biyaha iyo gooynta biyaha meel raadiyaan lahayd marka qudaarta iyo xaaladda magaalada badan bay nooga kala timaadaa qudaartu waa kala nooc iyo nooc walba way leedahay nooc aan ka koobnayn male dawlad badan baan ka kala keenaa Soomaaliya iyo dhul Itoobiya iyo dawlad badan baan ka kala keenaa qudaarta hadda inuu xiriir baa yara galay way yara kacsan tahay dalka Soomaaliya qudaarta ka keeni jirnaa hadda waliba siiba sida qudaarta hoose ee qajiga barbarooniga kamsarta qudaartaas dalkeena ka soo bixi jirtay ama laasanood ha noqoto ama buuxa ha noqoto ama tuulooyin u dhow ha noqoto qudaartaas waa sare kacna yara aadna way u yar tahay soo dhow bishii Ramadaan hadda soo dhow qudrad markaa waxa la sheegay qaali noqoto marka bishan hadda soo dhow maxaa ka damacsan qudrada wallahi bishii soo dhow hadda walaa badan baa jira way yartay aad bay u tahay laakiin waxaan ku dadaalaynaa inaan insha Allah hadda meel aan ka keeno dadku iibsado dadku sida bisha Ramadaan qudaarta aad loo danayaan qudaarta midna cagaarka oo kale kamsarta oo kale karootada oo kale saladka oo kale mooska oo kale qudaartaas oo kale in lagu dadaalo oo bisha Ramadaan dadka loo aad loo keeno oo dadka iyo macaan tahay laakiin hadda maalmahan bishan gudaheeda waxa muddo xiriir baa yara galay xiriirkaas oo kulli waqtan iyo roob la'aantan oo sabab marka kacdo markuu sixir ma dhaw nabeen qiimaha ku dhamar waxa dhacda marka waa soo wactay dinaasinad waa wax laga dinaaso Maxamuud Salaad telefishinka caalamiga Bulsha TV magaalada Buuhoodle